inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. taliyihii ciidanka booliska ee degmada Garadag laba xidigle Cabbaas Maxamed Diiriye ayaa saaka deegaanka Godheeli oo ka tirsan degmada Garadag ee gobolka Sanaaga gacan ka xaqdaran ku dishay. taliyaha iyo ciidankiisa ayaa la sheegay inay deegaankaasi u tageen faldambiyad uu hore u galay isla ninkaasi gacan ku dhiglaa ee dilka geystay. laba xidigle Cabbaas Maxamed Diiriye ayaa la soo magacaabay 3 bishii Abriil ee sanadkan aynu ku jirno, isagoo muddada kooban ee uu shaqada hayay waxa qabad muuqda oo bulshada deegaanadani soo dhaweysay ka qabtay deegaankani, sida dabargoynta dhuxulaysatada, deegaamaynta dhismayaal iyo kor u qaadida bilicda saldhigga degmada Garadag. wuxuuna ka mid ahaa Allah u naxariistay taliye Cabbaas Maxamed Diiriye dufcaddii ugu horeysay ee ka baxda barnaamijkii shaqo qaran ciidanka ammaanka ee qaybta gobolka Sanaaga, oo marka dilku dhacay kadib si dhaqsa goobtaasi u soo gaadhay ayaa ku guda jira soo qabashada gacan ku dhiglaa, sidoo kalena sugaya amniga guud ee deegaanadaasi. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. maxamed gumburi, Bulsho TV, Garadag.